wasaaradda haweenka arrimaha bulshada ee qoyska gudoomiye ku-xigeenka degmada mas'uuliyiinta kale ee degmada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada galbeed ee soo dhaweyntan sharafta badan ee noo sameeyay waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib ugu horeyn waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan sharafta badan ee xurmada badan oo aad noo qaabisheen oo aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan taa idinkaga mahad celinayaa inta kadib socdaalka iyagu wuxuu ahaa socdaal booqasho shaqo oo aan ku nimid degmada anagu maamulka iyaga gobolku waa booqashadii 20aad oo intii aan xilka haynay aan shaqo ugu nimaana degmadan Galdogob waa degmo aanu jecelnahay ehelkeedana jecelnahay waxa aan ku jecelnahayna waa wanaaga iyo gobonimada ay leeyihiin horumarka ay sameeyeen oo ay isku tashadeen oo degmo samaysay ay yar tahay isbitaalka ugu weyn oo shacab dhista Puntland degmadana waa degmadii dhisatay waxbarashadana waxbarashada Puntland waxbarashada ugu sarreysay ay heer ka gaadhay sidoo kale waxay ku horumartay waxbarashada sare oo waa degmada kaliya marka laga reebo Gaalkacyo gobolka Mudug jaamacad leh aad iyo aad baan uga hambalyeynaya intii kale horumarkaas jaaliyada dibadda iyo dadka gudahaba horumarka la sameeyay oo ah mid ay ka faa'iideysteen dadkii degmada ku noolaa iyo dadka degmada ka baxsan ilaa iyo xuduudaha Itoobiya sida isbitaalkan uu qaabilo ama uu deeqay baahidii dadka bukaanka ilaa iyo reserve-ka Itoobiya ilaa iyo koonfurta Soomaaliya ilaa iyo dhinaca waqooyi inta ku xeeran oo dhan degmadan runtii waxa socdaalka iyagu yahay inaan u kuurgarno xaaladda degmada iyadoo ay kurgalkaas hormuud ka tahay wasaaradda haweenka arrimaha bulshada iyo qoyska qoysku wuxuu ka kooban yahay hooyo iyo aabe iyo caruur marka wasaaraddan waa wasaarad dadkoo dhan xukunta wasaaradaha kala shaqay leeyihiin gaargaara laakiin wasaaraddan waa wasaaradda dhabta runtii u xukunta howlahaas oo dhan macna intaas oo dhan duruuftooda waxbarasho duruuftooda caafimaad duruuftooda nololeed duruuftooda nabadgelyo intaba in la ogaado waxaan ka codsanaynaa qaybaha kala duwan marka qayb walba inay warbixin la yaqaan qaybteeda ka soo diyaariso iyadoo markaas insha Allah taala aan rajeynayno wixii qayb walba laga qaban karana inaanu ka qabanno ama aanu gacan ka geysano hadii Alla idmo mar labaad waxaan idinkaga mahad celinayaa soo dhaweyntii iyo istiqbaalkii sharafta mudnaa gaargaar ayaan dadkana ula kulmi doonaa xarumaha dawladda iyo xarumaha guudna u wada booqan doonaa hadii Alla idmo waxaan hadalka marka ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha bulshada ee qoyska Marwa Xaliimo Xasan Cismaan oo ah qof reer Galdogob oo degmadan dadkii ku soo barbaaray oo nolosheeda qayb ka midana ay ku soo qaadatay Xaliimo waxaan leenahay ku soo dhawow ehelkaagii iyo dadkaagii iyo degmadaada